qof walba oo ka aamusa dulmigan wuxuu noqonayaa qayb ka mid a dulmiga. Haddaba waa waqtigii la garab istaagi lahaa walaalihin Gaza, cod ahaan, qoraal ahaan iyo ficil ahaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Gofara Podcast, meel kastoo aad adduunka dacallada kaga sugan tihiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa oo dul taagaynaa falsafadda run ahaantii iska caabinta Falastiin ee marnaba run ahaantii hoos u dhacayn. Haddaba maxaa dhacaya marka run ahaantii dad qiyaastu ay leedahay 2,300,000 ay run ahaantii cunto la'aan, biyo la'aan iyo koronto la'aan ku nool yihiin, haddana ay adkaysanayaan in waddankooda ka tanaasulaan. Run ahaantii tani waa qisada ka socota ee waaqica ah ee Gaza ka socota. Halgankooda maalinlaha ayaa run ahaantii noqday cashar lama ilaawaan caalamka falsafadda iska caabinta wax ka beddelay. Reer Falastiin gaar ahaan dadka Gaza waxay waajahayaan duqeyn joogto ah, go'doomin, tacaddi run ahaantii bini'aadamka ka soo jeeda oo run ahaan la kulmayaan maalin kastaba. In ka badan 75 dadka Gaza waa qaxooti. Waxaa run ahaantii lagu qiyaasaa 61 qiyaastii boqolkiiba 61 ayaa run ahaantii ku nool yihiin waxa loo yaqaano saboolnimo, waxay ku nool yihiin saboolnimo daran. Sida run ahaantii laga soo xigtay midowga run ahaantii hay'ado badan oo waxa qoray. Haddaba Gaza run ahaantii waa astaanta run ahaantii u noqotay noo noqotay run ahaantii hoos u dhacno adkaysiga geesinimada. Qaybta maanta podcast-ka maanta waxaan diiradda saaraynaa falsafadda iska caabinta dadka reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza. Waxay run ahaantii saldhig ku haysaa sida ay waxay saldhig ku hayso iyo sida ay run ahaantii ula falgalaan gumeysiga Israa'iil. Haddaba qodobka ugu horreeya falsafadda iska caabinta ee Falastiin maxay ku qotontaa? Iska caabinta Falastiin reer Gaza run ahaantii waa mid run ahaantii ku qotonta falsafad adag. Ta ugu horreysa waa run ahaantii in ay run ahaantii ay aaminsan yihiin qadiyadda inayn aqbalaynin gumeysiga Israa'iil. Markaasiba run ahaantii ay muqadas u tahay dhulka uu yahay. Awoodda maxay ahayd muhiimadda labaad run ahaantii aaminsan yihiin iska caabintu waa awoodda caqiidada iyo dhaqanka. Diin ahaan iyo dhaqan ahaan reer Gaza waxay u arkaan dhulkooda inuu yahay run ahaantii dhul inuu yahay in ay yihiin ammaano Ilaah oon la bixin karin. Haddaba dib u xaqiijinta sharafta bini'aadanimada iska caabintu run ahaantii reer Falastiin waxay sidoo kale qaab laga hadlo inay Falastiiniyiintu yihiin ku mudan yihiin ay leeyihiin sharaf karaamo ka mid ah kuwa kale ay aaminsan yihiin. Tusaale ahaan run ahaantii tusaale nool iyo run ahaantii tusaale muhiim ah haddaan kula wadaago mudane iyo marwo intii u dhaxaysay Oktoobar 2023 ilaa iyo maanta oo ku suganahay 2025 in ka badan 38,000 oo Falastiiniyiin oo reer Gaza ayaa run ahaantii ku dhintay waana shuhada. Badankood inta ugu badan waxaa haween iyo carruur iyadoo run ahaantii ay socdaan weeraro aan kala joogsi lahayn oo Israa'iil fulinayso. Haddaba inkastoo ay jiraan cunaqabatayn dhanka biyaha, caafimaadka iyo xitaa internetka, dhalinyarada reer Gaza ayaa sameeyay barnaamij waxbarasho online ah sugaya run ahaantii loo yaqaano hoos loo qaado iyo isbitaalada run ahaantii dhaqsada ay ka tagaan dhammaan inay caawiyaan. Taasoo run ahaantii tusaale u ah run ahaantii hal-abuurnimada iyo adkaysiga Falastiin
gaar ahaan reer Gaza. Qodobkeena labaad waxaan ka hadlaynaa gumeysiga Israa'iil iyo jawaabta dadka reer Gaza. Gumeysiga Israa'iil wuxuu ahaantii qaabkiisu yahay mid cusub. Waa gumeysi ku qarsoon gumeysi aan joojin karin gudaha aan joogin gudaha taasoo ahaantii lagu magacaabo kolonyalismiga elektarooniga isticmaalka teknolojiyadda si loo dabagalo una ahaantii caburiyo Falastiiniinta. Laakiin jawaabta Gaza waa muhiim inaad fahamtid mudane. Waxay ku qotontaa samir, adkaysi iyo digniin. Waalidka reer Falastiin wuxuu runtii caruurtiisa baraa xorriyaddu waa mudnaan tahay. Waa mudnaan mana jirto gumeysi mana aqbalayno gumeysiga. Waana haddii dadku ay go'aansadaan in aysan marnaba ogolaanin. Intaas la fahmay mudane iyo marwo waxaan soo gaarnay iminka gunaanadkii mawduucina maanta. Reer Gaza maaha oo keliya goob dagaal run ahaantii waa madal ay ka dhacaan fikrado cusub, geesinimo iyo falsafad nolosha maanta qofka oo ka soo saaran karayn. Iska caabintan socota waa mahantii aad waxay muhiim iyo digniinada ka socda adduunka run ahaantii waxyaalo ayay geliyeen waxa ka socda. Run ahaan dhammaan adduunkii gaal iyo islaam arrinkan Gaza aad iyo digniin waxay ku tusinaysaa run ahaantii muhiimadda iyo adkaysiga leeyihiin. Haddaba mawduucina maanta wuxuu ku qotomay ka hadlaya falsafadda iska caabinta dadka reer Gaza oo run ahaantii ku salaysan mahantii in dhulkan laga tanaasulin oo run ahaantii dhulkooda la soo ceshado dhulkooda diintooda iyo sharaftooda ay marna ka tanaasulin. Waa mahadsantihiin saad u dhageysateen saa iyo kulanti.